Afrika qaaradda dhalinyarada in ka badan boqolkiiba konton dadka qaaradda Afrika waxay ka hooseeyaan ama da'doodu tahay 20 sano. Waxaa ku nool qaaradda Afrika dad gaaraya 1.2 bilyan, halka qaaradda Yurub ay ku nool yihiin dad gaaraya 741 milyan. Afrika waxay ka kooban tahay 54 dal. Dadka Afrikaanka ah ayaa si xawli u sii kordhayay sanadihii u dambeeyay. Halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa 10 dal ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Kaalinta tobanaad Suudaan waxaa ku nool dad gaaraya 41 milyan 801,533. Suudaan waa dal dhaca waqooyi bari Afrika oo xuduud la leh Egypt, Koonfurta Suudaan, Central African Republic, Chad, Eritrea, Ethiopia iyo Liibiya. Waxay ka mid tahay wadamada ugu dadka badan qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 41 milyan oo qof. Kaalinta sagaalaad Algeria waxaa ku nool dad gaaraya 42 milyan 228,429. Algeria waxay dhacdaa waqooyiga Afrika, sidoo kale waa dalka ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Algeria waa dhul saxaro ah, inta badan bulshada waxay ku nool yihiin meel u dhow magaalooyinka. Dalka waxaa ku nool dad gaaraya 42 milyan oo qof, sidoo kale waxaa la filayaa in dadweynaha Algeria ay sii laablaami doonaan marka la gaaro 2050. Kaalinta sideedaad Uganda waxaa ku nool dad gaaraya 42 milyan 723,139. Uganda waa dal aan lahayn bad bariga Afrika dhaca oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 42 milyan oo qof, iyada oo heerka sanadlaha ee kobaca dadka uu gaarayo 3.61 boqolkiiba. Uganda ayaa ku dhashay ku dhawaad 1.2 milyan oo ciyaar sanadkiiba. Kaalinta toddobaad Kenya waxaa ku nool dad gaaraya 51 milyan 393,010. Kenya waa dal ku yaala bariga Afrika, sidoo kale waa mid ka mid ah dhaqaalayaasha ugu weyn gobolka. Waxay leedahay dad gaaraya 51 milyan oo qof oo matalaya 3.69 boqolkiiba wadarta guud ee Afrika. Dadka intiisa badan waxay ka kooban yihiin dhalinyaro da'doodu ka hooseyso 30 sano. Tirada dadka Kenya waxaa la filayaa inay sii laabanto sanadka 2040. Kaalinta lixaad Tanzania waxaa ku nool dad gaaraya 56 milyan 388,348. Tanzania waa dal ku yaala bariga Afrika oo xad la leh badweynta Hindiya. Waxaa ku nool dad gaaraya 56 milyan oo qof oo badankoodu ay ka kooban yihiin dhalinyaro. Tanzania waxay leedahay qiyaasta kobaca dadweynaha ee sanadlaha ah 2.69, waxaana la filayaa in dadka reer Tanzania ay laablaami doonaan 26 sano ee soo socota. Kaalinta shanaad Koonfur Afrika waxaa ku nool dad gaaraya 57 milyan 779,622. Waana wadanka shanaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Tirada dadku waxay kordhaysaa qiyaastii 700 oo kun oo qof sanad waliba, taas oo matalaysa boqolkiiba 1.6 isbeddelka sanadlaha ah. Koonfur Afrika waxay ka mid tahay wadamada ugu horumarsan Afrika. Kaalinta afraad Democratic Republic of the Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxaa ku nool dad gaaraya 84 milyan 68,091. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika oo leh dhul aad u ballaaran iyo kan afraad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waxay hoy u tahay in ka badan 84 milyan oo qof. Wadankan ku yaala bartamaha Afrika wuxuu soo maray kobaca tirada bulshada oo degdeg ah 20 sano ee la soo dhaafay. Kaalinta saddexaad Egypt Masar waxaa ku nool dad gaaraya 98 milyan 423,595. Waana dalka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Inta badan dadka waxay ku nool yihiin wabiga Niil iyo magaalooyinka waaweyn sida Qaahira. Dadweynaha Masaarida waxay ka yihiin qaaradda 7.68 boqolkiiba. Dalku wuxuu leeyahay koror dadweyne sanadkiiba oo ah 2.29 boqolkiiba, taasoo ka dhigan koror ah 1.8 milyan oo qof sanad waliba. Kaalinta labaad Ethiopia waxaa ku nool dad gaaraya 109 milyan 224,559. Ethiopia waa wadan ku yaala bariga qaaradda Afrika. Waa dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin 109 milyan oo qof. Ethiopia waxay leedahay koror dadweyne oo gaaraya 2.6 boqolkiiba sanad waliba. Wadanka wuxuu hoy u yahay in ka badan 80 qowmiyadood oo asal kala duwan leh. Kaalinta koowaad Nigeria waxaa ku nool dad gaaraya 195 milyan 874,740.
Nigeria waa dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaa ku nool 195 milyan oo qof, waxayna ka tahay qaaradda 16 boqolkiiba tirada guud ee dadka Afrika. Sanad kasta, tirada dadka reer Nigeria waxay korortaa 5.5 milyan oo qof. Kororka tirada dadka ayaa ka dhigtay in Nigeria ay noqoto dalka 7aad ee ugu dadka badan adduunka oo dhan.